Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada asxaabay barnaamij aan ka diyaariyey awoodda military ee waddanka Masar ama Egypt. Haddii aan ku bilaabno juqraafi ahaan, waddanka Masar dhanka waqooyi waxaa ka xiga badda loo yaqaano Bahrul Mutawassit, halka dhanka barina ay badda cas Masaaridu ka xigto. Waqooyi bari waxaa ka xiga Falastiin, gaar ahaan Gaza, halka galbeedka ay xuduud la leeyihiin Masaaridu Liibiya. Koonfurna waxaa ka xiga waddanka Suudaan. Masaafada waddankaasi waxaa lagu sheegaa in ay dhan tahay 1,002,000, halka tirada dadkuna ay yihiin 1,234,000. Tirada waxaa lagu sheegaa inay yihiin 100,002,334. Haddii aan usoo noqono awoodooda military, Masaaridu kaalinta 7aad ayay ka yihiin kala horeynta ciidanka dunida oo dhan, oo 6 waddan kaliya ayaa ka awood badan maanta dunida la joogo. Afrika waxay ka yihiin kaalinta 1aad, Carabtana sidoo kale waxay ka yihiin cududa 1aad ee military. Ciidanka Masaarida waxaa lagu sheegaa inay dhan yihiin tiro ahaan 920,000. Hadda waxaa howlgali kara 440,000, halka ciidamada kaydka ee Masaaridu ay dhan yihiin 480,000. Ciidanka cirka Masaaridu xagga kala horeynta caalamka waa kaalinta 10aad. Diyaaradaha ay Masaaridu leeyihiin kuwa dagaalka ah waa 54. Taangiyada kaalinta 4aad ayay kaga jiraan xagga caalamka, waxayna haystaan 4,259 taangi. Waxay leeyihiin Masaaridu 1,139 madaafiicda la jiida ah, 2,189 madaafiicda goobta ah, 1,084 gantaalo masaafo fog gaari kara. Iyo ciidanka badda haddii aan u nimaadana, Masaaridu waa kaalinta 7aad xagga kala horeynta caalamka. 316 markab ayay leeyihiin oo ah kuwa dagaalka ah. 2 ka midana waa kuwo waaweyn oo xambaari kara diyaaradaha helikobtarka ah, halka 8 ka midana oo waaweyn oo ah nooca quusa ay leeyihiin Masaaridu. 45 doomood oo ah casri kuwa dheereeya ah ayay leeyihiin Masaaridu. 31 doomood oo ayagana ah kuwa miinooyinka badda ka baara ayay leeyihiin Masaaridu. Masaaridu waxa ay haystaan diyaaradaha nooca casriga ee loo yaqaano F-16 ee Mareykanku oo farsameeyo, halka sidoo kalena ay haystaan diyaaradaha nooca ugu dambeeyay ee casri ah ee Ruushka uu farsameeyo ee loo yaqaano Mi-24 iyo Komov 52. Sidoo kale Masaaridu waxay haystaan miigag nooca loo yaqaano MiG-29 oo ah nooc weli casri ah oo dunidu aad u isticmaasho. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka.